haylaala raray geel ninkii hodankii waayaaye hayinimuu ka jiibsaday wuxuun hilayga saarsaariya faratoonna aan haaraamanne igaga heriyaya si allaba haddii awrka gurgur kaaga fadhiisto ama intuu ku jiro diido kugu tunto kugu dhawabaceeyo maxaa diidaya dameer baadiyana ha ahaatee wuxuun inaad hoggaanka la gaadho si aad carruurta ugu dhaansato sidoo kale markii ay iska diideen dadweynaha reer SSC Khaatumo iyo waxgaradkoodu siyaasadda gurracan ee ku dhisan ciilqabka iyo cuqdada ee ay hogaaminayaan Muuse Bixiye inta ku hareeraysanay maxaa diidaya subax noolba inaynu aragno iyagoo bidood hor loo cusub xadhigga intay la heleen sida war xun canaada jiidaya si ay uga raadiyaan nafis siyaasadeed ama xogaa cimri dhararsiya waxaan arkayaa dadweynaha reer SSC Khaatumo oo aad uga falcelinaya imaanshaha magaalada Hargeysa ee Raaya Garaad Cabdiqani waxaa la yidhi nin baa wuxuu dhalay inay wax ka yaraysan yihiin markaasay inanimo ku weynaatay deetana maantii dambe baa mid sideedoo kale sacsaco wax ka yaraysan yihiin oo deegaanka koox dhalinyaro intay soo kaxaysay waxay ku yidhahdeen hebelow hebla gacanta qabsoo dhabbada la maroo la bax deetana gacanta intuu ku dhegay buu la dhaqaaqa way soo ordeen oo aabbaheed oo makhaayad fadhiya intuu yimaadeen oo shaah cabaya bay ku yidhahdeen hebelow inantaadii heblo waa lala baxay aayar buu shaahi intuu dhigtay wuxuu yidhi oo adeer yaa la baxay markaas yidhahdeen hebelladda waa kii caanka ah waa la wada garanaya inuu sacsac kala yahay hadal kale sidii looga sugayay bay adeer daaya ha isla aanbadaane waxaan uga socdaa caqliyaddii Muuse Bixiye inta ku hareeraysan ee ahayd xuduudihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed aanu ka midka nahay ee adduunku aqoonsan yahay waanu ka baxaynaa waa ka go'annaa iyo qabiilka iyaga beri hore oday warqad u saxeexayo waa muqaddis oo lagama bixi karo iyo Ingiriis baa beri halkan marayo dhul reer leeyahayna siiyey iyo caqliyaddii Raaya Garaad Cabdiqani inuu gareynay reer SSC Khaatumo oo la isku daray war anagu waxaan idin odhan lahaa daaya ha isla aanbadaane waxaan ku soo afmeerayaa oo hadalkayga kaga baxayaa inna haddii ay garasho iyo xigmad ku dambaysaa jirto siyaasaddan ay hogaaminayaan kooxda indhaha lehi waxay isweydiin lahaayeen bidoodkii faraha badnaa ee kan ka horreeyey ee hadda barhkood Hargeysa idinku xaraysan yihiin maxay idin tareen maxaadse ka dhaxasheen waxay kaloo isweydiin lahaayeen waa maxay dhadhanka midhaha idinka soo go'ay siyaasaddii indhaha la'ayda ku dhisnayd hebel inoo doona aynu hebel oo la dhashay ku dileen waxaa kaliya aad ka dhaxasheeni saw wixii geedi kasta oo nin ciil qabaa garhwadeen ka yahay uu dhexli jiray maaha saw tacab khasaar iyo xoog dafaar lagu eriyey maaha saw 30 sano wixii aad ku tabcaseen oo maanta gacmo midhan aad ka taagan tihiin maaha saw riyadiinii wakhtiga dheer oo been iyo dhalanteed ku soo dhammaatay ma aha horey buu noogu wargeliyey abwaan Axmed Sheekh Jaamac ilaahay ha u naxariistay sugaantiisii qaaliga ahayd qof ciil qabaa inaanu cadaalad talin cadil lagama helo ruux hadduu ciil gunaad qaba ee cawan nool wuxuu xibanayaa caad wixii dhacay ee ciddiduu qaniino iyo fartuu cuni habeenkii iyo cilinkiisa lama saari karo iyo caynka uu rabe ee waxbuu cululubtaa goor walba oo way iscuburiyaa waxbuu cululubtaa goor walba way iscuburiyaa ma caddeeyo dawgoo gartana waa cuyubayaaye yaan cuurna raynraynin buu ceel u qodayaaye cirka inuu sidi'in buu rajayn cawsna soo bixinee cawan lagama helo oo laftaa caabuq kaga yaal ma idinla tahay siyaasaddii nactooyada iyo koonfuriyey degina aan dabgelinno reeraha dariska inala'ana aan ku duulno shaqayn weyday oo way fashilantay ma idinla tahay inaad gees kale ka haanadaan muxuu yidhi abwaankii kale Soomaaliyeed raggu waa isdili jiray dibna waa u kaban jiray duubigu ka dhaaftee weli dunida lama arag cudur aan dawo lahayn doqonnimo mooye iyadoo Soomaaliya isuula dishay oo dhibka Soomaali ka dhex dhacay beri aydan ka ahayn oo qaybtiinna aad leedihiin oo hadda kaa dhacaya oo ugu dambeeyo ayaa waxaa tihiin qoomka keliya ee weli wixii dhacay ku cabanaya ama ku ciilka qaba guntii iyo gabagabadii qodob waxaan leeyahay xogaga daraawiishadii iyo walaalaha hiil harti qodobna waxaan leeyahay jamaahiirtii reer SSC Khaatumo jamaahiirta aan ka horreeye miyaa laydin galay miyaa laydin kala diray mise idinkaa iskulu gaabiyey waayaabe beryaha meelaad ka hadlaysaan lama arag waa inaad dibka codoonkii boodhka uga jabtaan si aanu halbacaad lagu lisay u noqon tacabkiinnii iyo dhiiggii shuhadaadu qodobna waxaan leeyahay xogaga daraawiisheed iyo walaalaha hiil harti tallaabooyinka gurracan ee Muuse Bixiye bidoodkiisu ay wadaan casharada kaliyaynu ka baran karnaa waxa weeye hubka kaliya laynagu muquunin karaa inuu yahay kala qaybsanaantana casharro inagaga filan horey baynu u soo qaadannay muxuu yidhi maaweel qof xaraar kore ayaa mar waa xagalka daacaaye xambaaraduna way iskaga dhacdaa wiil xininya leh wixii hore taariikhda inoo geli maayaan ee waxaa taariikhda inoo gelaya casharada aad ku dhigi doontaan qoriga caaradiisa maxaa yeelay dhagaha Muuse Bixiye iyo bidoodkiisu waxaan qoriga caaradiisa ahayn mana maqlaan mana gartaan bismillah
ninkan sawirkiisu idin muuqdaa wuxuu sheegtay afhayeenka beesha bariga burco tiraba 2 muuqaal baan daawaday oo ku aflagaadaynayo odayaasha dhaqanka Sool Sanaag iyo Cayn khaasatan Xurmadle garaad Cabdilaahi garaad Saleebaan iyo garaad Jaamac garaad Cali waxaan filayaa guurtii iyo caqli ka dambeeya inaanay jirin sababtoo ah waqti ku filan buu qaatay cid ridinaysa oo ka hadlaysana maynan aragay isaga ugu dhanta libaax baa reer beri u soo dhacay baa markaas wuxuu kala dhacay 6 buulan dabeetana dameer qolqolka feesaraadkii reeriye laga dhigayo ku dabran baabiqla iyo haraatin la eegtay libaaxii oo 6diisita dabeetana libaaxii oo 6dii si fiican uga buuxsanaya intuu dhigtay si miyir qabto oo degan u jaleecay waxa nabarka ku dhuftay mise waa dameerka feesaraadkii qolqolka reerka lagu dabray dabeetana wuxuu ku yiri dameerow caawa afka ii buuxay adiga waa inoo habeen dambe marka waxaan ku leeyahay adigu ama afhayeenahow ama ha ahaan waxaa maragma doona inaanu sahodin aad u dheer wadaagno geel yaadhiguna isugu keen jiro balse inta ninka isagoo bisada intuu muraayada isku eegay sawirka libaaxa ka dhex arkay dabeetana xashin iyo gabil iyo qoriga dab kale kala soo orday aanu kaba laaleegu xidhanno xajmiga iyo miisaanka uu leeyahay aanu tusanno afka noo buuxa ee waa inoo habeen dambe qodobka xiga waxaan leeyahay 3 oday ee siyaasadda ku asaasaqay waa Saleebaan Gaal inay kaahiniyo Muuse Juudaan qabba idin hor orday aydan lahayn xiyaadan carab qabkan ku hor orday iyagu waan qarash garowga silsiladii suugaanta siinleyba waxa ku jirtay qof saluugay maankiisa kasalka ay xaqiiqdiisa qabku saamil la maaha waxaad dafirteen inaad aqbashaan kuwa aad tihiin shakhsiyadiinni baad diideen wayse dhowdahay xilligaad aqbali lahaydeen kuwa aad tihiin inaad garowsataan inaad tihiin dhalinyaradan gelinka horena baabuurta aad ku soo gurasaan waraadada gelinka dambana kuwa ku keentana aad ku qaadasaan iyagoo wax dhintay iyo wax dhaawacmay isugu jira baaqiga aad ka carartaanna dooxooyinka nugaalada dilibka laasacanood markii waraabuhu ka dhargay haadu indhaha kala baxday ee ku fadhanayso waxay u eg tahay cid gacmaha idinka qabata inaanay idinka dambayn oo aad cidla ka hesheen waxaad ugu sheekaysaan waalidiintood wax la yihahda qaran oo aad diideen idinkoo dafirtoon oo ka cararteen inay difaacayeen xaqiiqaduse sidaa maaha dulmigii iyo dibindaabyadii iyo jaajuusnimadii aad ka gasheen geyga Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhagartii dilka qorshaysan iyo qaraxyada ku asteysnayd iyo cuqubadii isku kiin gaadhay baanu aragnaa in leedinka goynayo oo didibka laasacad iyo gooja cadda ilaahay qisaas idinku soo xidhay oo gacmaha iyaga uu idinku halaagayay qodobka ugu dambeeya waxaan leeyahay in allaale iyo intii ka hadashay gobolada waqooyiga Soomaaliya khaasatan Hargeysa iyo Burco ama culimo ha ahaadaan ama waxgarad ha ahaadaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan ama mucaarad ha noqdaan ama muxaafid ha noqdaan ee ku celcelisa colaadda gobolka Sool ha la joojiyo xabadda ha la joojiyo wada hadal ha la isugu yimaado iyagoo weli jabhadooda ay u jeen qaaran tahay deegaano iyo dalaan lahayn inay ku dhimato ku dagaalanto wuxuu yiri indhaha gardaranaya misna aabi iyo kibir intay ilinta daadsheen eedeeyay ruuxay anafada u geysteen inay tahay afkala qaad dadku waa ogsoon yahay hadday aqoon iyo garasho idinka tahayna waad indhabeesheene ilaahay indhaha iyo dhagaha idin furo hadday ogaan idinka tahay waad bedheerisaan oo isleediin waxbaad khiyaamayn kartaana waa idin aragnaa goddi gali jiray god looma galo dad qolooma gurgurto